live trading keeni maanta oo Friday 11 July waana maalinkii ugu dambeysay asbuucan sida arkaysaan tradeyadeena maanta sidan bay ahaayeen trade-ka horeeto sida ujeedaan ORB aan ku qaadanay strategy halkan baa suuqa ka baagaranay targetku 71 pip waa asalkana 50 pip waa 1.4 kaas ka raadinaynay so ilaa maal iska leh ilaa 56 ilaa 57 pip camal buu nasiiyay sida arkaysaan kadibna almost 2 checkpoints markuu noo gaaray break even buu soo aaday waana manage garanay trade-ka oo sida aan sheegay anagu trade-ka haduu TP1 noo gaaro total ma ku khasaarno waana break even garanaa faa'iidadana markasta uu target gaaro qayb baan maaragtay secure garaysanaa so haddana mar kale halkan baan re-entry ka soo sameynay oo aan suuqa ka baagaranay sida arkaysaan iyadoo target 1kan oo halkan trade-kana guudaan 62 pip oo TP iyo oo yani full target iyo 46 pip oo SL 1.3 waa marka alxamdulillah isagana sida arkaysaan dhaqaaqan hore TP1 buu noo gaaray 29 pip and then marka break even buu naga saaray hadda waxa arkaysaa markuu SL ka gaaray inuu si nadiif ah u soo dhaqaaqayo laakiin already anaga waan ka baxnay trade-kan oo markaa TP1 buu nasiiyay taasoo ka dhigan labadan trade maanta ku dhawaad 90 pip camal aan ka helnay asbuucanana saasa ku soo khatinay ilaa maal iska leh 5 maalmood waa trade garanay dhammaan trade-yada aan qaadanayna insha Allah iyo win rate-kooda Telegram-ka ka heli kartaa oo si daily aan u soo dhignaa sidoo kale muuqaaladan sida daily-ga u sameeyno nabadgelyo